hortii aan musqusha sidaas u aaday ninkii mobilkiisa ayay qabatay kadibna waxay bilowday xilligaas inay baaritaan ku samayso laakiin xilligaas waxay aqrisatay naag kale inuu ninkan la Who is hadlayay she? goortay fariimay sidaas u sii raacdana waxay ogaatay xitaa ninka inuu intaas ugu ekeenay gabar kale inuu ka raacee xitaa ayada ayuu ku maadsanayay oo sawirradii ayuuba gacalisiisa kala u dirayay soo dhawaada saaxiibayaal walaalkiina barqada maanta inay wada qiso aad u xanuun badan taasoo aan rajeynay inaa cashiraad kala bii doontiine naga inaad muuqaalka like saatid channelka dadka cusub tahay subscribe-ta naga hilmaamin oo dhushooda taga sidaasoo kale hilmaamin channelka laadina soo booqatid qaybta hoose ee commentiga ayaan soo dhigayaa haddana aan gudaha u galno qisadeena bilowga sheekadeenna waxay ku bilaabanaysaa gabadha yar taas oo lagu magacaabi jiray Mimi. Mimi ayaa waxay ka shaqayn jirtay dukaan yar oo ay leedahay hooyadeeda, kaas oo ku yaallay mid ka mid ah waddooyinka ugu waaweyn magaalada Lagos. Halkaas ayayna waxay gudi jirtay hilibka yararka ee noocyadiisa kala duwan ee waddooyinka lagu dubo, sidaasoo kale daangada. Dad badan ayaana u imaan jiray kana iibsan jiray. You Gabadhan work iyo too da'yarta hard. waxay la nooshahay hooyadeeda, aabbaheedna mar hore ayuu geeriyooday. It's worth Gabadhan it. waxaa jirta wiil ay aad u jeceshahay kaasoo lagu magacaabi jiray Isaaq. Inkastoo haddana ay aad uga fikirto labadooda xiriirkooda waxuu soo socday in muddo ah, oo xiriirkooda waxa uu ka soo bilowday ilaa dugsigiisa gabadhan markay dhammaysay. Inkastoona haddana jaamacad aysan gelin, haddana waxay go'aan ku gaartay ninkan inay la midowdo, macnaha ay guursato. Xilligaasay bannaanka hore ku fakaraysa hooyada ayaa ku tiri gabadhaydii gudaha soo gal. Iyadana gudaha ayay soo gashay inkastoo maamada xilligaas ay aad ugu faraxsaneen in gabadheeda xilligan ay guursato. Waxayna bilowday gabadheedii inay la dardaaranto waxayna tiri gabadhaydiyey aniga ahaan haddii aan ku caqli celiyo waxaan ku dhihi lahay gabadhaydiyey weli xilligan ha guursan. Tan kale waad ogtahay ninkan aad guursanaysid isaga ma aha nin shaqeeya oo hadda ayuu weli waxbarashadii wadaa. Marka maad iska sugta adigana waxbarashada iska sii wada oo ilaa heer jaamaca gaartid. Iyadana waxay ku tiri maya hooyo macaan ninkan anigu waan jeclahay. Tan kale wuxuu ii ballan qaaday markuu isaga jaamacadda dhameeyo shaqo hela kadibna inuu anigu waxbarasho ii diri doono oo jaamacaddeeda halkaas aan kasii wada doono. Tan kale aniga qof qaangaar oo 19 jir ayaan ahay. Marka waan ku baryaa hooyo macaan ha ii cabsan. Hooyadiina waxay tiri gabadhaydiyey inkastoo aadna talada yeelin haddana waxaan ku leeyahay gabadhaydii arooska ku degdegin oo marka hore adiga naftaada horta wax u sameey oo waxbaro kadib ninkaas la aad. Iyadana waxay tiri maya hooyo macaan aniga ii cabsan ninkanna waa nin wanaagsan wax walbana isaga ayaa ii wada xalli doonaa markaan labadeena isguursanno. Maamadiina waa ay ka aqbasho oo lama ay sii doodin. Waxayna tiri gabadhaydii okay guul ayaan kuu rajeynayaa. Mimi oo faraxsan ayaana meeshii ka tagtay. Maalmo kadibna waxaa la bilaabay arooskoodii in la qaabiyo ilaa ugu dambeyntii la gaaray maalinka arooska dhacayay. Xilligaasna waxaa ka soo qayb galay dad aad u yar oo labada dhinac ka socda. Waxaan ka wadaa Zaag iyo weliba gabadhan yarta Mimi. Ciyaar yar oo meeshii ka dhacday ugu dambeyntii xalfadii waa ay soo gabagabowday. Iyagiina waxay soo aadeen gurigii yarka ahay. Zaag iyo weliba Mimi siday waqtigaas ugu noolaayeen ayaa ninkii wuxuu dib ugu laabtay waxbarashadiisa. Iyadina go'aan waxay ku gaartay ninkeeda inay sabood garayso. Suuqa ayayna dib ugu laabatay waxayna bilowday inay halkaas khudaarta ay ku soo gado. Kaliya intaas maan xitaa waxay bilowday dharkeeda inay soo dhaqdo si halkaas lacag u soo samayso. Laakiin bilooyin kadib gabadhii uur ayay qaaday. Uurkeedana waa uu sii weynaaday. Kadibna waxay bilowday maalin inay hooyadeeda booqato. maadaama ay hadda xaaladda ay ku adkaatay hooyada ay u tagtay waxayna ku tiri hooyo macaan ninkayga hadda weli jaamacaddii ma uusan dhammayn sanadkii ugu dambeeyey ayuuna ku jiraa ilaa haddana wax lacaga ma uusan samayn anigana suuqa inaan kasii shaqeeya ama dadka dharkaan u dhaqo aad bay iigu adag tahay xaaladdiina way igu soo xumaanaysaa ayay ku tiri maamadii goorta intaasi maqasho waa ay ka naxday waxayna tiri gabadhaydii horta aad baan uga xumahay inkastoo aniga hore aan kuugu sheegay guurku inuusan ahayn wax lagu degdego adigiina waa ku degdegtay laakiin cabsan gabadhaydii aniga ayaa garabkaaga ah dhibaatadana ku jirta gabadhaydii waa isla wada maraynaa iyadana aad bay ugu farxday arrinkaasi kadibna suuqeeda ayay dib ugu bilowday waxayna bilowday mar kale inay suuqeeda ka dhex shaqayso sidaasoo kale ciidaha deriska ay dharka u soo dhaqdo si ay lacag yar u samayso laakiin arrinka xanuunka badan ee iyada markaas ay ku soo kordho waxay ahayd in qofkii ay nolosha u jecleed kaasoo ahayd hooyadeeda ay geeriyootay taasoo iyada ku noqotay mid xanuun badan habeen ayayna guriga hooyada soo booqatay kadibna waxay fadhiisatay kursigii ay fadhiisan jirtay waxayna bilowday meeshii inay isaga murugooto asbuucyo ayaana ka soo wareegay geerida hooyadeeda iyadana hadda uurkii waa ku sii siyaadayaa waxayna had jeer dhijit hooyo maan aad baan kuugu xiisay qofka keliya mar walba waana jiray adiga ayaa ahayd laakiin maanta waad iga fogaatay si kastaba haatee gabadhii yar tahay ee Mimi isma aysan dhiibin waana waxay ku gaartay caqabadahan yarka inay u dul qaadato biluhuna mar kale waa ay gudbeen ilaa ugu dayntii gabadhii yar tahay Mimi ay dhashay wiil yar oo aad u qurux badan laakiin sanad kale ayaa marka la soo wareegay iyadana uur kale ayay qaaday
haddana waxa ay dhashay gabar. Qoyska ayaana markaan isugu tegay in dhammaantood 4 ay wada noqdeen. Si kastaba ha ahaatee, ninkii kale aan soo hadlay Zachary isaga jaamacaddii waa uu dhameeyey, kadibna shaqo wanaagsan ayuu helay. Kadibna xaaskiisa ayuu waxa uu ballan qaaday mar dambe inaysan ka sii shaqayn doonin xaafadaha, iyadana guriga ay joogi doonto, carruurtan ay tarbiyey doonto. Goortii intaas ogaat aad bay ugu farxday, wayna uga mahadcelisay. Laakiin waxaa jira arrin iyada ku soo laabanaya, kaasoo iyada maskaxdeeda ka guuxayay, ahna riyo iyada ay lahayd. Riyadaasna wax kale maahan, ninkeeda ayaa hore ugu ballan qaaday haddii shaqaa inuu isaga hadduu helo inuu iyada waxbarashada dib ugu celi doono. Habeenada ka mid ayayna u timid mar ay carruurtiisii ahdeen. Kadibna waxay ku tiri, ninkaygii dhegayso, waxaan rabaa inaan arrinkaa la hadlo. Kadibna wuxuu yidhi, maxaa waaye, maxaana doonaysaa inay iga hadlaysid? Isagoo xilligaas moobilkiisa ku mashquulsanay. Waxayna ku tiri, saaxiibay dhegayso, ma ogtahay inaad horey ugu ballan qaaddo haddii adiga lacag fiican aad samaysid inaad aniga jaamacadda ay diri doontid si aniga waxbarashadii halkaas aan uga sii wato. Goortaas intaasi maqlayo wuxuu ku yidhi, imi runtaan kuu sheego, xaqiiqdu waxay tahay hadda adiga weli labada carruur inaad daryeelaysid, marka aad bay kugu adag tahay. War haddii mar kale aan kaaga dhigo. Kadib goorta intaasi maqashay kumay safarin hadalkaasi. Kadibna waxay ku tiri, okay, dhib ma leh, taas waa mar kale. Haye waxaan ku weydiinayaa bal ka waran ganacsi yar hadda aniga ii furtid, maadaama inta badan aan xaafadda iska joogo, arrinkaasna aniga uma fiicna. Marka intaas ii sameey oo keliya aniga ganacsi yar bannaanka iga fur, halkaas ayaana ku shaqaysanayaa. Isla markiina waxa uu ku yidhi, ganacsi hadday tahay waan og inaad ku fiican tahay, laakiin ka waran arrinkan laftarkiisa mar kale haddii aan ka sheekaysanno. Iyadana isla markiiba waa ay ka aqbashay, waxayna ogaatay ninkan inuu iskiiskiisa oo aad u badan yahay, iyadana uu iska daba wareejinayo. Iyadana dulqaad waxay bilowday inay iska dulqaadato, iyadoo mar uun rajaynaysay ninkan inuu wax ka xalli doono. Laakiin habeenno kale ayay ku soo laabatay si arrinkana kala hadasho, laakiin weli waa sidii isagana isma uusan beddelin. Inkastoo gabadhan riyooyin badan ay lahayd, taasoo ah mar uun inay waxbarasho dib ugu laabato, jaamacaddeedana ay sii wadato, laakiin taas uma ay suurtagelin. In badan oo gurigii gabadhii ay ku sugneed, iyadoona weliba wax qabaneed markii laga tago inay carruurteedii daryeelayso, cuntada xaafaddaas ay karinaysay, weliba howlaha kale. Gabadhii way isbeddeshay, waxayna bilowday gabadhii inay aad u cayisho, xitaa mararka qaar markay biraayadda isku fiiriso aad bay isaga nehi jirtay. Laakiin marnaba iyada isma aysan dhiibin. Habeenada ka mid a guriga ayay ku soo laabatay, kadibna sariirtii ayay iska tagtay, iyadoo aad u daalan shaqooyinka maanta ay soo qabatay. Xilligaasna waxaa guriga ku soo laabtay ninkii Zachary. Qolkii ayuu soo galay, kadibna kursi ayuu isaga fadhiistay, wuxuuna bilaabay asxaabtiisa inuu iskala sheekaysto. Mar kale ayayna ku soo jeestay, waxayna tiri, saaxiib way dhegayso, aniga horta waa daalamana doonaya mar kale inaan uur qaado. Labadan carruur ayaana naga badan, yaa weliba howlaha guriga ee ka waran haddaan carruur dambe aan isku dhalin. Isaga xilligaasi moobilkiisa ayuu ku mashquulsanay, isla markiina moobilka ayuu dhigay. Wejigiisa si wacrad laga dareemayo, wuxuu ku yidhi, maya, macquul maahan, aniga 4 carruur ayaan u baahanahay inaad ii dhashid. Goorta intaasi maqashay waxay ku tiri, saaxiibow taasi macquul maahan, aniga labadan carruur ayaa iga badan iyo weliba howlaha guriga, marka ma doonayo inaan ilmo kala dhalo. Isagana waxa uu ku yidhi, taas aniga kaa aqbali maayo, oo waxaan u baahanahay inaad ii dhashid 4 carruur. 4 carruur markaad kadib ii dhashid, daaltii carruurtii waad iska jooji kartaa, laakiin bishardi waa inaad 4 ii dhashaa, sababtoo adiga hore ayaad iga ballan qaaday. Ayadiina waxay tiri, saaxiibow taasi macquul ma noqon karto, aniga ma doonayo inaan ilmo kala dhalo, labadan carruur ayaan iga badan, iyaga ayaana daryeelayaa. Laakiin isagii waa uu ka diiday, wuxuuna ku yidhi, taas kaa aqbali maayo, waa inaad 2 carruur ay dhashaa, sababtoo markii aan adiga aan isguursanayna balanteen waxay ahayd 4 carruur oo keliya inaad ii dhashaa. Mimi goorta intaasi maqashay candhuufteeda ay dib u laqday, kadibna waxay ogaatay ninkaa inay hore ballaan uga qaaday, waxayna go'aan ku gaartay inay iska aqbasho. Waxayna ku tiri, okay, hadday sidaa tahay 4taas carruur markaan ku dhalo ma doonayo mar kale inaan carruur dhalo. Isagiina waa uu ka aqbalay. Maalmuhuna sidaas ayay ku socdeen. Maalmihii xiga ninkii waxa uu bilaababa inuu asxaabtiisa waqti iskala soo qaato, mararka qaar xitaa guriga uu ka dhaxo. Tan kaloo sii dheer waxay taaba naftiisa keliya inuu daryeelo, lacagta uu helay xitaa asaga uu isku khasaariyo, dharar qurbaan uu soo qaato, asxaabtiisa safarro u raaco, waalidiintiisana uu lacagtaas u diro. Sidaas ayuu wuxuu ku waday in muddo ah, halka gabadhii yareed ee qolkeeda keliya iska joogtay. Sanadku hal mar ayuu orday, oo 9 sano ayaa ka soo wareegatay. gabadhiina 4 carruur waa ay dhashay. Inkastoo ninkii ballantii ay ka qaaday isaga ay u oofisay 4 carruurna ay u dhashay, haddana tan kale iyadoo ku taagneed waxay ahayd in ninkan ilaa hadda iyada uusan ganacsi oo uusan u abuurin, tan kale uu sii dheerna jaamacaddii uusan geyn. Da'deedana waxa ay gaartay 30 sano. Inkastoo gabadha da'deeda ay saa'id haddana sii noqotay, haddana waxayba ismaantay inay tahay gabadha iyada riyada lahayd. Riyadeediina halkaas ay ku burburtay. Shaqadeedana waxay noqotay carruurtaas yararka inay daryeesho.
sidaasoo kale howlaha guriga ay qabato. Inkastoo howlahaasoo idil ay dana isku waday, arrin kaloo xanuunka badan waxa uu ahay in ninkeeda maalmaha ka dambeeya uu sii bedelayo, oo xitaa isaga wuxuu bilaabo mararka qaar guriga inuusan imaan oo bannaanada iska soo seexdo. Iyadoo gabadhii intaas shaki badan ka qabto ayaa waxaa dhacday habeenada ka mid ah mar labadu ay sariirta ay seexdeen ayuu ninkii waxa uu bilaabay inuu baldhankaasi musqusha aado, laakiin moobilkiisa ayuu meesha uga tegey. Habeenkaasi goortuu moobilka meesha uga tegey, nasiib wanaagsan moobilku ma uusan xirnayn. Mimi ayaana isla markii moobilka aragtay, fariimo ayaana xilligaas soo dhacayay. waxayna bilowday bal moobilkii inay ninkan fiiriso inuu naag kala wadayo weliba inuu qiyaamo ayada ku samaynayo. Laakiin goortii sidaas moobilku u furtay aad bay u naxda waxay meesha ku aragtay, wax kalena meeshii kuma aysan arkin. waxay halkaasi ku aragtay in ninkani naag kale uu shukaansanayay. kan kaleo kasii xanuunka badan waxa ay tahay in ayada xitaa sawirkeeda ay meesha ku aragtay oo waxay ogaataba ninkan xilliga kursiga ku fadhiisto inuu ayada sawir ka qaado kadibna uu u diro xabadan kale isjecel yihiin, isagoo xilligaas ku tilmaamaya inay tahay mid butaca oo weliba caqli lahayn. muhiimisa goorta intaas aragta candhuufsideeda dowlaqada weyna aamini weysay, ilinta ayaana isla markiiba ka soo dalatay. kan kanoo xilligaasi kasii xanuunka badneed waxa ay tahay inuu ayada farriimihii u diray ay ka mid ahaayeen inuu ka qowmeeyo naagta inuu guursado, weliba aad buu u necbi yahay mana uu jeclaa maadaama iyada ay aad u buuran tahay. goortii intaasi maqasho way aamini weysay, moobilka iyana dhulka iska dhigtay. qalbigeeda ayaana wuxuu u bujaabay malaayiin, iyadiina waxay bilowday inay iska murugooto. ilinta ayaana meesha uga dadatay, waxayna aamin weysa waxaanay arkaysa inay jirayiin iyo in kale. ninka iyada ay jecleed weliba nafteeda ay u hurtay, suuqa dartiid u gasha iyada uur leh maanta inuu sidaas u galay, weliba ay sawiradeedii ou naag kale u diray, isagoo weliba ku majaajiloonaya. iyadoo aad u murugaysanayana go'aan waxay u gaartay ninkii runta inay indhaha ka saarto. waxayna bilowday inay weydiiso, waxayna ku tiri waxaan ku doonayaa maxaa sawiradeeda qof kalaad ugu dirtay, tan kale maxaad iigu wacday butacey, adiga le halkaan may soo dhigino. isagoo xilligaas yaabanayo wuxuu yidhi maxaa dhacay, dhibka jirana maxuu yahay. isaydiina waxay ku tiri wax walba waa arkay farriimaha ah haweenayda kale la wadaagtay iyo weliba sawiradeeda aad u dirtay, ee ii sheeg maxaad iigu wacday butacey, maxaadna sidaan dhan iigu majaajilootay, tan kalema waxaad ku qomaynaysa in adigii guursatid. kadib ayuu ninkii isagoo naxsan uu ku yidhi oo kaalay ma moobilkayga yaa fifiirsiyey weliba farriimaha, laakiin dhib ma leh, hadda waxaan u malaynayaa wax walbood raadnadiisa inaa heshay. markaas miima iyadoo yaabanaya waxay ku tiri ma intaasoo keliya ayaa doonaysa inaa haddii tiraadid anigoo nafteeda kuu huray, tan kale 4 carruur kuu dhalay, nolosha idil kuu hibeeyey, riyooyinkii aan lahay adiga dartaa inaan u burburiyey, ma sidaan ayaad iigu beddeshay. zaag sidaan maxaa ila dhaqmaysaa. isagiina waxa uu ku yidhi walaale hadda naga daa sheekadaas ee aan kaa seexanno. iyadiina waxay bilowday ninkii inay kusii qayliso, waxayna tidhi saaxiibow saan ahad ma kuu malaynayn. laakiin isaga isla markiiba isma oysan dhibin. sheekada markuu dulqaadan waayay ayuu isla markiiba dharkiisii gashtay, kadibna qolkii dhan ayuu uga baxay. wuxuuna ku yidhi okay qolka adiga ayaan kaaga tegey ee meeshaada ku sii ooye. muhiima way aamini weyse waxaasay ninkaas ka maqlayso, inkastoo xilligaas ay ka rajeynaysa xitaa inuu raali geliyo maadaama iyada si xun ula dhaqmay, laakiin taasi ma aysan dhicin. iyadana ugu dambayntii waxay faanqaysataba ninkaani wax daran weyn oona iyada iska dhigatay xabad kalena oo hadda ka haysto. si kastaba haddee gabadhi way iska sii dulqaadato sababtoo ayada jawi kale u furnayn aansi jirin. laakiin galab galbaha ka mida waxay soo fadhiistay miiskii xilligaasi lagu cashaynayay, inkastoo ninkeeda xilligaas uusan joogin. waxayna bilowday keligeed inay fikirto, waxayna tidhi maadaama hadda 4 carruur aan dhalay, da'deeduna ay kor u sii gaartay 30 sano, micnaheedu maahan in aniga hadda aan wax qabsan karin. laakiin su-aasha xilligaas iyadoo ku taagneed waxay ahayd inaysan wax lacag haysan, taas hooyad hadda ganacsi ay ku bilowdo si ay nolosheeda u sii hormariso. sidaasoo kale way ogtahay haddii ninkeeda inay weydiiso inuu iska dawarweejidayo, laakiin iyada go'aan waxay u gaarta marnaba inaysan isdhiibin sida iyada guulaheeda u gaarto. si kastaba haatee carruurta ayaa guriga ku soo laabtay, kuwaasoo bannaan ku soo cayaarayay, kadibna cuntadeeda ayay siisay, waxayna ku amartay inay kala seexdaan, iyagiina waa ay kala jiifteen. goortiisii ay sidaas u kala jiifteen wax yar kadib waxaa yidhi ilmaha aabbooda oo waxaan ka hadlayaa zaag. cashadii ayay u soo dhigtay, kadibna waxay tidhi saaxiib waxaan doonayaa arrin inaan kaala hadlo. isagiina waxuu yidhi maxaad doonaysaa inay igala hadasho. iyadana waxay tidhi dhegeyso saaxiibow, hadda waa ujeeddaa aniga dhan waan cayilay, sababtay ugu cantana waxay tahay gurigaana had iyo jeer iska jooga iyo cuntaana iska cunayo. marka sidaa darteed waxaan go'aansaday jim ina aado, kan kalena waxaan doonayaa ganacsi inaa ii furto maadaama aad horey ugu ballan qaaday. laakiin ninkiisaaga markuu intaasi maqlay qosol ayuu ku dhuftay, waxa uuna bilaabay gabadhii inuu xilligaas ku jejeeso. waxa uuna ku yidhi ma hubtay hadda ma waxaad doonaysaa jidhkaada inaad iska dhintid oo lacag aniga aan ku siiyo kadibna jim aa ku aadin, micnaha aniga dhoohano ma nahay, sida ayaan lacagtay kugu khasaarinayaa si adiga jim u aado. xilliga intaasi maqasho way aamini weysay, wuxuuna sidaasoo kale ugu sii daray 4 carruur ayaa ku joogta,
carruurtaas ayaana hadda kaa baahan in ay xanaanaysid marka jimka iyo waxyaabahan aad ka fikiraysa maskaxdaada ka saar miimi ayaana tiri taas macquul maaha wax la khasaaralena ma jirto aniga waxaan doonayaa quruxdeeda dib inaa u shaqaysta carruurtaana waa ku xanaanaynayaa marka waa inaa lacagta siisaa si aniga barnaamijkii aan ugu bilowdo isaga ayaana islamarkaada waxaanu ku yidhi walaalay runtaan kuu sheego aniga horta ma ogtahay guurkaada inaan aad bibsanayo weliba la joogitaankaada sababta hadda keliya aan kula joogo wax kale maahne waa carruurtan mar hore ayaanba kaa tegi lahay goorta intaasi maqasho way aamin weysay wuxuuna sidaasoo kale ugu sii dara hadda wixii ka dambeeyey maba nii banin iyo xaaskiis oo keliya waxaan nahay 2 qof oo saaxiib oo guriga isla jooga carruurtaas ayaa naga dhaxaysaa goortaysa miimi intaasi maqasho aad bay u naxday waxayna isweydiinayso inay riyoonayso iyo in kale meesha ayayna ka carartay kadibna qolkeeda ay iska tagtay waxayna bilowday meesha inay ku fikirto waxayna xilligaa isweydiinaysay ninkani maxaa ka qaldan aniga waxaan siiyey wax walbo isaga iga baanaay waxbarashadii isaga dartiis ayaan uga tegey isaga ayaana ii ballan qaaday in waxbarasho ii gey doono xilliga aan 19 jir ka ahay wuxuu ii ballan qaaday inuu jaamacadii gey doono weliba riyooyinkay dhammaanna uu ii rumay doono haddana riyooyinkeedu ilmo wuxuu u beddelay markii aniga da'dii 30 gaar 4 urna uu iga dhalay ma wuxuu bilaabay inuu sidaan iigu jijeyso waxayna ogaatay riyadeedii horta halkaan inay ku burburtay haddana xabsayda ay gudaha u gashay tan kale ugu xanuunka badanna waxay ahayd in asaga hadda meeshaan oo keliya u jooga carruurtiisa meesha ayayna isagoysay xilligaasna waxay rumaysataba ama xaqiiqsatay in qaladkii ugu weynaa ee nolosheeda gashay inay ahayd markii ay ninkaani soo guursatay haddana isaga uu sabab u noqday maanta nolosheeda inay si aan u burburto weliba maanta lagu tilmaamay inay labadii xiriir uusan ka dhexin oo xiriirka halkaas uu ku soo burburay waxayna tiri sababtan hadda keliya meeshan u joogo waa carruurtaas mina markaas waxay go'aan ku gaartay inay carruurteeda horta ay daryeesho sidaas oo kalena mustaqbalkeeda ay fiirsatay ninkan wixii hadda ka dambeeyana ee arrinkiisa ay ka fikirto sababta waxay ogaatay ninkan inuu iyada wax daryeel hadda u siinayn riyadeediina dhulka u geliyey si kastaba haatee mimis ma aysan dhiibin habeenada ka mid ayayna moobilkeeda soo qabsatay kadibna waxay wacday saaxiibadeeda qaaliga xaliima sannado badan ayayna labadooda isugu dambeeyey samay soo wicin sababtoo ah gabadhani waxay ku mashquulshay arrimaheeda iyo weliba arrimahan guurka sidaa darteed saaxiibadeeda xaliima ma aysan wicin xaliima sidaasoo kale waxay iyada dooratay waxbarashadii ilaa ugu dambayntii iyadana ay noqotay gabar ka shaqaysa bangi sidaasoo kale miimi intaysan guursan xaliima ayaa waxay ku tiri saaxiibay guurka nasgelin sababta laguma degdegi karo laakiin aydu waa ay ka diiday laakiin hadda nolosha iyada ayaa ku dhacday goortaysa xaliima sidaas moobil ku qabatay miimi ayaa la hadashay kadibna waxay tiri saaxiibii waran miimi xaliima ayaan isla markii tiri saaxiib waan kuu fiicanahay adigii waran iyadan isla markii way hadashay laakiin xaliima oo xilligaasi dareentay inay wax ka qaldan yihiin gabadhan iyo weliba codkeeda ayaa waxay ku tiri saaxiib maxaa kugu dhacay ma wax weyn ayaa jira miimi ayaan isla markiiba iyadoo qalbi jabsan ilintuna ka daadanaysa waxa ay u sheegtay wax walba gabadhii saaxiibadeed ahayd iyo weliba nolosha xanuunka badan ay ku jirto 4 carruur dhashay ninkeeda saag sida xun uu la dhaqmayo iyo weliba markii caawimaad weydiisatay inuu ayada xitaa caawimaadii u diido wax walba ayayna u sharaxday iyadoo xilligaas ilmada ay ka daadanaysay xaliima oo xilligaasi fahanteynay saaxiibadeeda dhib weyn loo geystay ayaan isla markii tiri miimi dhegayso runtaan kuu sheego horta weli fursad ayaa haystaa waqtina kaama uusan tegin ragdu waxay tahay adiga inaad hadda naftaada aad bedeli kartid waxaad doonaysaa inaad sidaan u sii oydi inta waqtigaada kaaga dhiman maya taas kaama yeelay saaxiibadeedii waa inaad fikirtaa ereydaas markay maqasho ayaa isla markiiba miimi qalbigeeda la taabtay waxayna xaqiiqsataba in xaqiiqdu tahaba inaan aniga isbedelo ee maahan qof kale inaan sugo laakiin su-aasha mar kale iyadoo xilligaas ku soo laabata ayaa waxay ahayd maadaama iyada wax lacag aysanin iyo meel ay wax ka soo galaan waxay samaynaysaa isla markiina wixii tiri xaliima xaqiiqda kuu sheego anigu wax lacaga maayey oo aan noloshayda ku bedelo ee marka maxaan sameeyaa xaliima ayaan isla markii waxay ku tiri saaxiibi dhegaysa aniga ayaa saaxiibadaada qaaliga ah wax walba aniga ayaa kuu samaynaya tan kale jiimkani waxaa soo ku fakaraysa kadaa subaxii adiga xaafadaada aalamiita ku sameey tan kale aan kuugu sii daro aniga ayaa muuqaalo kuugu soo diraya muuqaaladaas ayaana mar walba ku celcelinaysaa kareemo jirkaada oo isticmaashiyo quraxda dib kugu soo laabatana aniga ayaa kuu soo diraya oo lacag waxsa ka walweyn sidaasoo kale maadaama carruurta ku mashquulsan tahay ayna aad ku adag tahay jaamacaddaada inaad geshid waxaad jira meelo kale oo wax ka baran kartid meeshaasna wax kale maahane waa inaad si online ah wax ku barataa goortii miimi intaasi ay maqashay marka hore waa ay ka labalabaysay laakiin ugu dambayntii way qaadatay subaxiga markii la gaaray gabadhii waxay bilowday guriga inay aalamiito ku samayso muuqaaladii saaxiibadeed ay u soo dirtaana inay mar walba ay fiirsato si ayada jirkeeda u dhinto iyaduna marnaba xilliga ay isdhiibeen maalinkii kalabar waqtigeedana waxay sii jirtay inay aalamiitada samayso sidaasoo kale waxay bilowday kareemadii saaxiibadeed u soo dhiibtay inay isticmaasho bilooyinkana sidaas ayay ku socdeen bilooyin yar ay sidaasi waxay u joogtaynaysa sidaasoo kalena online-kay koorsooyin ka qaadanaysay weliba koorsooyinka gaaban ee sidaasi ku waday saaxiibadeedna halkaasay ka caawinaysay gabadhii isbeddel ballaaran ayay isku aragtay horta jirkeedii waa u dhimay
tan kale quruxdeedii marka la dib ayay u soo laabatay maalmaha ka mid ayay miraayadda isku fiirisay kadibna waxay xaqiiqsataba si otomaatig ah inay iyada isku dhintay kadibna carruurteeda ayaa xilligaas agteeda joog kadibna waxay ku dhaheen hooyo macaan you are so beautiful macnaha hooyo macaan aad baad u qurux badan tahay waana isbeddeshay iyadan taas ayay waxay uga dhigneed mid kale sidaasoo kale gabadhii maadaama xirfado online-ka ay ka baratay isla markiiba shaqo ayay raadsatay si online ku shaqaynayso ugu dambeyntiina way heshay goortiisa sidaas u heshay ayay bilowday inay ku shaqayso xoogaa lacagna ay ka aruursato bal naga kale aan soconno ninkii isaagahay wuxuu arkay gabadhan iyo weliba isbeddelka ay samaynayso iyo sida ay quruxdeeda mar kale dib ugu soo laabatay waxa uuna bilaabay gabadhii mar kale inuu u soo dhowaado oo markii hore ay cayilneed waa uu diiday hadda maadaama ay isbeddesho quruxdeeda inay soo laabato wuxuu bilaabay mar kale inuu xiiseeyo dibna ugu soo laabto isagoo xitaa mararka qaar u ballan qaadi jiray inay ganacsigeed ay ka rabto inuu dib u sii doono welina uu furi doono wax walba iyada weydiisato inkastoo xilligaas iyada ay xaqiiqsanaysay inuu haddana sababta ugu soo laabtay tahay maadaama isbeddeshay ayaa habeenada ka mid a waxaa dhacay in labadooda ay kursigu fadhiisteen kadibna ay sheekaysteen isaga ayaan isla markaa alle waxauna ku yidhi irigayso horta mimi waan ogahay qalad ayaan galay laakiin hadda waxaan go'aansaday adiga inaan ganacsi kuu furo kadibna aad sidaas u shaqaysatid isla markaas iyadiina waa ay dareentay hadalkeeyana ka soo dhex gashay kadibna waxay tidhi saaxiib runtaan kuu sheego aniga horta waan ku ogahay sababtaan igu daba ordays wax kale maan sababta hadda quruxdeeda ayaa mar kale dib u soo laabatay maadaama aan isku dadaalay markii hore aan cayilnaan oo adiga wax ku weydiistana waad ii diiday tan kale aan kugu daro adiga hore waxaad ii sheegtay inuu ani adiga waxba naga dhexinin oo keliya gurigaan aan ku joogno carruurtaan oo keliya markaa sidaa darteed anigu waxaan go'aansaday inaan halkani kaaga tago goortuus hadalkaasi maqlay ninkii isaaga waa mini waxuuna ku yidhi war walaalay carruurtan ayaa naga dhexay sidaasoo kale guur ayaa naga dhexeeya marka waxaasa samayn gurigaanaan ku wada noolaano iyadiina waxay tihi maya lagama yaabo mana doonayo guriga inaan kula noolaado carruurtada u baahantana waa kaaga tega haddaan rabin aniga ayaa kaxaysanaya isla markiina meesha ay uga tagtay waxayna bilowday dharkeed yarka ahay inay iska soo aruursato sidaasoo kale carruurteedii ayay gacmaha ku dhegtay bannaanka ayaynu la baxday goortiisa saas guriga bannaanka uga soo baxday iyo waxay dareentay neecawda xorriyadda iyo waxay tahaba kadibna waxay u guurtay guri weyn maadaama iyada xoogaa lacag ay aruursatay gabadhii marnaba ismay sii dhiibin noloshii ayay mar kale la sii haddantay xirfado badan ayay baratay waa ayna ka sii shaqaysay ugu dambayntiina waxay dhimisay neecawda saxda ah maalmaha ka mid a iyadoo gurigeedan ku sugnaay ayaa waxaa ku soo booqatay saaxiibadeeda xalima taasoo sabab u ahayd maanta inay halkaani gaarto miimina waxay bilowday inay si diiran guriga ugu soo dhowayso iyadana xaliima arrinkaas waa ay ku faracday kadibna waa ay fadhiisteen waxayna bilaabeen inay meesha ay ku sheekaystaan iyo weliba rafaadkii gabadhan yarta ay soo martay sidaasoo kale waxay uga sheekaysay ninkii meesha uga soo tagtay shaqada iyada hadda ay bilowday iyo weliba shaqooyin kale hadda doonaysay inay sii wado xaliima ayaa xilligaas waxay ku tiri saaxiibay hadda ma doonaysaa nin kale inaad guursatid miimi ayaana isla markii ugu celisay maya saaxiibay hadda ma doonayo waxaan doonayaa carruurteeda inaan xanaanisto sidaasoo kale arrimihii ganacsigan aan sii wato markay wax walba isku ay fadhiistaan ayaanan doonayaa nin kale inaan guursado xaliima ayaan isla markii tiri saaxiib ra'yi fiican ayaa samaysay sidaas kuwad guul ayaana ku rajeynayaa asbuucyo markay ka soo wareegatay bal aan soo aadna dhankaasi ninkii isaaga ahay isaag maadaama xaaskiisii guriga uga tagtay sababaan waxa uu ku gaaray bal saaxiibadiisa kale inuu booqdo laakiin goortii uu xafiiskeeda imaado wuxuu arkaba nin kale inay la joogto kadibna ninkiiba uu xanaaqaysay oo cadhaysanayuuna xafiiskii ka soo tegey baabuurkiis ayuuna soo qaatay laakiin intii uu waddada sii socday isagoo ka cadhaysan waxay saaxiibadiis ku samaysay ayuu baabuurkiisa shil galay waxa uuna soo toosay isagoo isbitaalka dhex yaala dhakhtarka ayaana xilligaas u sheegay isagoo hadda ka dambeeyey lugihiisa inuu ku socod doonin goorta uu saag maqla aad buu u murugooday asbuuc kadibna gurigiisa ayuu dib ugu soo laabtay weliba isagoo lagu keenay kursiga curyaaminta si kastaba haatee moobilkiisa ayuu qabsaday wuxuuna bilaabay miimi inuu wacsoo cabkiis u weydiisto laakiin iyada way u mahaweysa wuxuuna bilaabay meeshii inuu isaga murugoodo laakiin maray asbuuc ka soo wareegatay ayaa miimi guriga ku soo laabatay laakiin xilligaasi waxay gacanta ku wadday warqado waxayna ku tiri waxaan ku keenay warqadihii furiinka waxaana doonayaa inaa hadda ii saxiixdo si aan meesha uga taga mar dambana isugu soo laaban goortooda saakinkaasi maqle wuxuu bilaabay gabadha inuu calaacalo isagoo ilinta ka daadanaysana wuxuu yidhi waan ku baryahay ka tegin maadaamaan qaladkaa gala qaladkaas ha i ciqaabin iska kay cafi isla markiina gabadhii waxay tidhi okay dhimal aniga waan ku cafiyo hadda waxba kuuma haysto laakiin xaqiiqadu waxay tahay adiga mar dambe inaa isku soo laabanin nolol dambana aanan midoobaynin wax badan ayuu meesha ku calaacalay warqaddii ayayna meesha artay waxayna ku tiri carruurtaada markaad u baahanta waa soo booqan kartaa iyo weli wixii kaloo caawimaada laakiin ogow anadii mar dambe inaan isku soo laaba doonin warqaddiina waa taas waa inaa iska saxiixdaa iyadiina meesha ay sidaas uga dhaqaajisay waxayna tidhi guul ayaan kuu rajeynayaa isagiina waxuu bilaabay inuu ka dabaqeeliyo laakiin iyada gaalo ma ay soo fiirin meeshii ayayna sidaas uga dhaqaaqday baabuur bannaanku sugayay isla markiina sii raacday meeshii ayayna ka tagtay halka ninkii uu bilaabo meeshii inuu isaga ooyo
isagoo xilligaas ku calaacalayay qaladkii weynaa oo gabadhan u geystay. Si kastaba ha ahaatee asxaabay, sheekadeenna hota halkaas ayay ku soo dhammaatay. Tan kale cashirka sheekadan aan ka baranayno waxa ay tahay in gabdhow riyooyinkiin iyo weli himilooyinkiinna aadna u burburin guur dartiisa. Cashirna ay kugu filnaato gabadhii Miimo iyo wixii ku dhacay iyo ninkeeda sida uu u jejeesay markii ay guriga iskaga dhex fadhiisay. Waan rajaynayaa wax cashirna halkaani ka qaadatay. Tan kale maadaama sanad cusub la sii galayo, waxaan kugu kula dardaarmayaa inaad wax cusub aad baratid, xirfado cusub aad baratid. Sababtoo waxaa jira meelo badan oo xirfado free laga baran karo. Waqtigaadana waa inaad ka faa'iidaysataa. Waa walaalkiina barqadani leh. Nagu muuqaalka like share janaalka subscribe dhaho. Sidaas iyo amaana Allah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.